Assalaamu calaykum. Dadka qaarkii waxay ka qayb galaan aaska markuu qof ehel ka geeriyoodo iyagoo muujinaya inay dinan jireen laakiin ma daryeeli jirin kamana warqabi jirin intuu u noolaa. Waxaa jira dadku maqli kara adiga ku hadlaya kumanaan eray haddana aan ku fahmaynin. Waxaa jira dad ku fahmaya adigoo xitaa aan hal eray ku hadlin. Haddii aad ka cabsan jirtay kelimada hadda ka cabsanay saaxiibku noqdaan dad xun. Qof kasta qalad ayuu sameeyaa nolosha laakiin taasi micnaheedu maaha inay naftoodu ciqaabaan. Mararka qaar dadka wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun micnaheedu maaha inay xun yihiin, micnaheedu waa inay bani aadam yihiin. waxaa jira 5 kelmadood oo muhiim ah nolosha. Number 1 caqiido, number 2 jacayl, number 3 daacadnimo, number 4 aaminaad, number 5 xushmad. haddii ay noloshaada ka maqan yihiin ku dhaqanka kelmadahani wax badan baa kaa dhiman. u isticmaal codkaaga naxariis, dhagaagana wax khayr inay maqlaan, gacmahaagana sadaqo, maskaxdaadana runta, qalbigaagana jacayl, jidhkaaga oo dhan cibaadiya alla ka cabsi. xabsiga ugu weyn ay dadku ku noolaadaan waa cabsida iyo kolwalidda wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin. haddii aad iska hadasho wax badan waxaad ku celcelinaysaa waxaad horay u taqaanay keliya, laakiin haddii aad dhegaysato waxaad baranaysaa wax cusub. dadka qaarkii waxay garanayaan magacaaga keliya laakiin ma oga qisadaada. waxay arki karaan dhoolla-cadayntaada keliya laakiin ma oga xanuunkaaga. waxay la yaabaan aamuskaaga laakiin ma oga maskaxdaada wax ka guuxaya. waxay aqrin karaan qoraal adigu soo qortay laakiin ma oga waqtiga aad ku lumisay. waxaa jira 2 nooc oo daal ah. mid waa daal aad hurdo iyo nasasho u baahan tahay, midna waa daal aad nabad iyo nolol u baahan tahay. Soomaalidu waxaya daal ay u baahan yihiin nabad iyo nolol.